hadda aad soo jeedisayna waa leena haddana bana ii sheegana wali rumaan sheegayna haddii mursada oo rabo in aan tawar u cusno oo wax u sheegno oo war niyad u dajaa u sheegno biri laga soo kordhaco anoo qaadamayna mas'uuliyadaas shacabkii banaanbaxa ka dhigayay degmada Daynile ee gobolka Banaadir kuwaas oo ka soo horjeeday in ganacsato lagu wareejiyo dhulka raadeelka ee degmada Daynile ayaa waxaa la kulmay xildhibaanada iyo wasiirada ku matala dowladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka oo ka soo jeeda beesha Mursade mas'uuliyiinta goobta tigay ayaa shacabka la hadlay iyagoo sheegay inay la daran yihiin qaar ka mid ah xildhibaanada ayaana sheegay in ay ku faraxsan yihiin inay dadku iska difaacaan ganacsatadaas waxayna sidoo kale carabka ku dhufteen in qoryahooda iyo hubkooda haystaan aagagoodana ay ku jiraan xildhibaan Jacfar oo ka mid ah xildhibaanada beesha Mursade ee ku matala golaha shacabka ayaa si adag uga hadlay xaaladda halkaasi ka jirta haddana bana ii sheegana wali rumaan sheegayna haddii mursada oo rabo in aan tawar u cusno oo wax u sheegno oo war niyad u dajaa u sheegno biri laga soo kordhaco anoo qaadamayna mas'uuliyadaas dhibka aad daranteen magaalada dhan waa ka jiriyaa adinkana waa idin soo gaaro ayaamahan dhinaceena hawsha ku soo harta culays kastana inuu maaha waa wax la hubo waana la malaysana waliba annagu warmaha dhigta idin ma lihin dhib sameeyo hadda duulal cid ku qaadana idin ma lihin laakiin waxaan idin sheegaynaa mas'uuliyad aan maanta qaadayno allana qof idin imaaha ma jirto ee gurihiina kala aada inaysan jirin nimayo waxaa la rabaa in qalabkiina waa haysanaysin anaguna garabkiina inta garabkiina istaagi kartana kulley waa ka dhalata dadkan waan istaagi doontaa hadda ka hor waxaa dhacday dawladda ayaa waxay isqabteen meesha la yiraahdo damdamiska xildhibaanadoodii iyo mas'uuliyiinteeda inta yimideen dadkii qanciyeenay dhahan annaga arrinta galiinay jooga hadda wixii ka dhacay waa awgeed dawladda inta fadhiisatay kulli odayaashii ragga la hadlay ayaan cidna qaymayninay habeenkii dambe duulaan ku soo qaaday dawladdu markii waayahan dambe saraakiisha iyo farsamooyinkooda shabaab cadow u ahay dadka ciidamada iyo saraakiisha habeen madow shabaab iska hoyaho meel joogo dib soo waday ka kor dhacday asay qabsatay weligii ma maqal laakiin dad shacab ah oo meel iska degan oo aan dib qabin inay dawladda ka dhacdo waa maqalnay waxaan rabnaa marka annaga xildhibaano ah shakhsiyaadana 8 qof iyo 10 qof waxaan dhamaynana waana ka badan tiin qabiilo dhamaatihiin oo degaan dhan degan mar walba annaga hana soo fiirina hadhiin horta xildhibaana wax naga celi waaye iyo matalaad mala iyo xaan ku matalna horta dawlad xun iyo dad xun hada u dhaxayso dhibaato qabta horta haddii dawladdu fiican tahay dadka waxba lala qaban karaa waxba loo noqon karaa dadku haday fiican yihiin oo dad macnale ay yihiin waa la safan karaa laakiin dawlad aan la safarna anagu ma aragno qabiil aan la safarno dadnimo laho wax iska dhicinaho dhulkooda difaacanaho magacooda difaacana ma aragno rumaan ii sheegaynaa shakhsiyaadkaas hadda aan meesha ku fadhino in kugu nimadana waxaan ka bedeli karnaa male marka toosan tihiin garab waa in sii karnaa waa idin la shaqay karnaa waa idin la dhima karnaa hadda adinka laakiin kala qaybsan tihiin oo aad magac kala leedihiin oo qaar annagu xirmaanta marka aan shan xildhibaanana wax shaqo isku mali qaar waxaan la waday dhacdo ka wataana waa raba kuwana waa diiday hadda annaga idin la joogno qaar waxay dhalahay xildhibaanada qaar aabul hawshaan oo waday u sheegayeen dawladda ugu dacweeyay wax waa ka wadina qasab wax ugu wadina qofan kala gambeynana ma jirto dadka inaan la dhimano waxay wadan aan la wado hadaan tabar noo diidin annagu diyaar u nahay baahi maanta noo geynaysa inaan dadkeena aan dhibaatayno aan baadoo la dhibaatayna aan ku fiirsanana lama hayso laakiin haddii aan tabar darana hayso ama dadku wuxuu yahay inaan iska aamusno iska joogno oo ku qasbanahay meelahan waxaan idin ka rabnaa marka mursado maanta imaashaha idin nimiday jacayl gooniya iyo waxa aan soo helno gooni aan kugu nimada ma jirto dhaqdhaqaaqi shar sameeyso yaray
حل حلبان المه إدين هذيك ما وعتين ساك هو كان أوائدين وأنا كمان وعتين بدنا ما دلتي ما دين دورت أنا ما إدين ما لكن هذا ما ركت إسكندورية وادي ما هي نائيو دبان كعب شيء نائيو دي وركينيا قف إدين ما هي أنا كنا إسكندر رافضة طب ملي وحنا نكرمنا مركز إسكندورية دورت ولا بروان مرصادة كرام كان دقينا إسكندورية نادن ولا جا مارمان أنا ومركز إسكندورية أرجعنا مالا أول حكرنا هو مجرته لكن مركز أول كلادات سيء هي أردنا مثلنا توصلنا وحكمنا عيني درين حاجة يدك واحد سوق له ورادو إسكندر ناس ضد ماشان مجوجين دنتظر إلى إسكا فيرس مركز ضد وحيد لقاه اللي ينو أسود تاجن ضد من له أنا كنروح هنا نقبسنا ولا ورا بينك صغيره waxaan lagu matesho iyo waxa noo tahay midna ma jirto waa qof lagu haayo markaas wax ay haleysay dadka anagu dalal ka naqan ma rabno inaan wax ay u degan yihiin dadka anagu waxaan ku ognahay dad iska dan yar ah u badan yihiin dad iska baahanay u badan yihiin deegaankan anagu qof nooga sheekeeyo ma jirto dadkaas marka qofku wax ka soo raadinaa ama cidda wax ka raadinay wax ka sii raadinay horta waa dad dulaysan allahna qabto waxaan idin karnaa marka mursado waxa u dhamaanayaan wax ka halaabayaan waa adinka xilwaanada shalay waxaan maqlaayay geel oo hadlayo xilwaan degan ma jira waa runtiis adinka degan meesha anigu beledkaas dhinac waa jirnaa adinka meesha degan adinka la idin rabaa anaga xilwaanadiin waa nahay hadaan xunna ayaa doonsanaa adinka in ka dhalanay hadaan xunnahana adinka xun sideedaba dad fiican hadaan uu ka dhalanay ma wax ma karno dad sakeena dhicina kii qaldama iska qabana kii hadii alla ku ilmaa ka shaqeynaayo waxay sarabin la soo istaaga banaanka laakiin diin is afgubatan xillaan hebel iyo wada hebel iyo daas dhahno beena aan sheegna maraan kala tagin ay dhal wuxuu ka shaqeeyahay ma ogin ogta waxa soo dadnimo ma aha dadka qaraabanahay waxa maanta la taagan yahay waa meesha ugu dambaysa inaan runta u sheegna la rabaa hadda gudoomiye ciise waa hadalnay warkiisa saluugu mayno haddii alla ku ilmaa madaxda gobolka uu kamid yahay waa nin 39 ah inuu wixii uu xal karo wixii tabaasiin lafkiisa tabara inay wax u diido maaha inuu dadaalo waa malaha aniga dadka qaar dadaal xum waa iska jiri kartaa laakiin gudoomiye ciise inta badan waxaan aaminsanahay doqonnimo kale iyo wixii ay u geystay waa meeshada laakiin inuu dadkaas inuu u dadaalo waa jecel yahay waxaan rabnaa marka waxa uu hadda arinta oo hadda meeshan ka soo jeediyay oo inaan dadkan loo iimaanin ah oo hadii alla ku idmaa in la fariisana ah ayadaasaan hadii alla ku idmaa aan wada fiirinayna laakiin gacanna in xalka lagu raadsho gacanna la isku ilaalisho rabaa gaan gacmaha la wada dhigan waxa aad samayseen waxa waaye mudaharaadku sida la sheegay waa xaq dastuuri ah ani wasiirka dastuurka ahay wasiirka cadaaladana waa horta muwaadinku inuu mudaharaado oo uu shucuurtiisa cabiro oo wuxuu diidan yahay uu sheego xaq dastuuri ah waaye dastuurka inuu ku yaalaan waana midii aad shalay samayseen haddii la soo baxay waxay ka jawaabaysaa xaqiinii aad cabirteen shucuurtiina cabirteen lagu soo baxay dadkii idin matelayna waa soo baxeen hadalkii aad sheegteen na si dhug leh ayay u dhageysteen waxad guduba inaysan dhici karinna waa idin sheegeen oo ay ka sokeeyaan dabcan hadallada iskama hor imaanayaan macnaha waxa way hadaad abaabulan tihiin oo adigu isku duuban tihiin oo hal qof tihiin oo hal luqad ku wada hadashaan sida Jaafar sheegay waxa waaye waa la idinku soo baxaya hadaa tafaruqsan tihiin hadaa adigu waadan midaysnayn hadaa nuuci badan tihiinna la idinku ma soo baxayo oo qiimo iyo maqaam iyo macno midna ma yeelanaysaan marka runtii shalayto waa aragnay ilaa ya xalay ma aanan seexanin ilaa shalay dhammaan waan la soconay waxa socday waan la soconay hadalka hadda maanta ka dhawaajinaysan naga soo doonanay inaan idin dhageysano oo idin soo hor fariisano
wax dulmi ah oo gardarro ah oo xadgudub ahna sharciguna ma ogola ilaahayna ma ogola dawladuna ma ogola waxyaabaha qaarkiis ee dhacaya waxaa lagu sixi doonaa maamulka gobolka Banaadir ayaa saxaya ciidan ma saxayo hub ma saxayo sidaa sheegteen cagaf socdaa ma saxayo maamul iyo sharci ayaa lagu saxayaa waan lagu hagaajinayaa inaad shucuurtiina cabirteena runtii oo aad muujiseen way wanaagsanayd way fiicnayd dabcan in hanti adoo dulmi ka carraa in hanti gubtid dhulkaaga gubtid wax daqartid dhiig daadisid ma fiicna laakiin shucuurta in la cabiro waa xaq dastuuri ah banaanka u soo istaaga shucuurtiina cabira hal la idin arko soo muuqda dawladnimada qabta dastuurka qaba sharciga dalka qaba yaa la idin oranin dawladdu ma qabto dawladnimada qabta sharciga qaba dastuurka qaba taas la idin sheega waay marka cid Allah ya cid idinku xad gudbi karta oo xabada idinku ridi karta muwaadin mudaaharadaya oo shucuurkiisa cabiraya ma jiro waxaan idin sheegayaa oo rabaa inaan hortiina ka sheego dad baa dhaawacmay dib baa dhacay dhimasha dhacday ayada laftigeeda midaas laftigeeda wixii meesha dib ka dhacay muwaadin ka dhacay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qaadanaysa dadka shacabka ah ee ka soo horjeeday in dhulkooda la boobo ayaa dhankooda goobta ka hadlay waxayna sheegeen haddii mas'uuliyiintan ay matalaan in ay la saftaan oo ay la dhintaan koodi hadda inta ka dhaxaysa waxaan raadinaynay magac mursade dal mursade haddii la ku ruuxay dhigdheer hadda ii waran waxaan isla taagnay ceel bur asoo xoolihiisa iyo wixiisa ku haleey oo u shaqeysada aan suugaan la daba joog waa ku guuleysanay oo maanta magac aan leenahay dal aan yeelanay markaan inta ka tagaynay bukaara hilib ku guday naagay dharbaaxday kuweeda ta ido ilaa magaci waa iska tirtirnay dal aan yeelanay degmaan yeelanay manasama yeelanay xildhibaan yeelanay dadkan ka ugu fiican waxaan maanta qalbiga maartay naar rura dadka aan inta ka kicinay oo dalkan qaadanayay in maanta la yiraahdo waa la siihaa waa loo cabira wallahi meel badan naga xanuujis sanatarow shalmaad u shaqo qaadna waa ogna shalay dalku waa ku guuleysatay ushaad noo siday dadkadan nagu usha noo qabo mursad waa mursadihi laba ma kii la waay maantana adinka meesha noo jooga anagu waa iska gabownay adinka noo yar adinka noo xildhibaanya adinka noo madaxa ilma adeer waxaan ku codsanaa magacaani oo dhum adina tan magac yeelmaysid dad meel ku xisabtaan la arag waxaan magac ku leenahay waa dalkan soo dhawaada war badan anigu ma aqaano qeyraaska ka yeesho waxaan rabaa dalku ruuy inaan magac yeelno gabdhaha inay qaali noqdaan meel ba magac ku yeelno nin kasto dalku ruuy aan bixil dhibaana marka loo istaago ilaa waa hebel waxaan idin sheegaynaa mas'uuliyiin si kasta oo meesha ku fadhidiin oo tihiin dadkaanu waxa waaye dhibaatay qabaan hantidoodii ma guurtaheeda la dhacaa dhibaataa lagu haayaa waxa waaye ninka la yiraahdo waxaysan ogeyn waxay og yihiin dhacaayo kuleel badan iyo dhibaato badan ay la kulmeen shacuurtooda say meeshan u fadhiyaan waad u jeedin dadka mas'uuliyiinta ilaaha weyn ka sokow dadka mas'uuliyiinta u ah oo ku matala ninka la yiraahdo dawladda Soomaaliya adinka waaye dadkauna dawladdiid ma ahan waa jecel yihiin dawladooda waana dawladoodi waa rabaan ma diidano her iyo habeen ay u taagan yihiin waxay tiraado dawladdiid ma ahan balse waxay diidan yihiin shakhsi meela ka yimid oo la aqoonin inuu dhacyay diidan yihiin dadkaanu waxay diidan yihiin dad aan la kasaynin oo meelay ku dhashay aan la aqoonin oon hanti la wadaagin oon qaraaba la ahayn oon dhaxal ku soo gelin oo nin ah oo shakhsiya inay dhulkooda qaataan aysan ogoleen intaas ay diidan yihiin dhulka 3 kurtood mid xaraha kuma jiriyo waxa uu soo horay goofo ugu ahay wixii ka bacd dawladda ninka la yiraahdo siyaad bare ka hor goofo u ahay wixii ka dambeeyana goofo u ahay midaan naqshad lahayn oo ninka la yiraahdo cabirayn oo dukumeenti dawladdu saarto aan lahayn oo si sax u cabirayn kuma jiriyo
waxay cabanayaan marka inaad xoogaa ka gaabiseen sida ay rabeen aadan ninka la yiraahdo wax ugu qabanina inaad meehe inka tabayeen inka dareensanaa inka la yihiin dadkaanu marka waxay rabaan dhulkooda in loo nabadgelsho nimanka hadda shirkad hadda ka hor dhulka soo qaadato docol la yiraahdo dhulkan maxaad u soo qaadateena la yiri waxay dhaheen waxaan ku maalgelin dhul ku yaala in soo maalgelinaan oo la soo siiyay wuxuu ku yaalaa meesha la yiraahdo cadalo cadala waxay gaartay cadalo dhul ku yaala in shaqo laga soo qabto dhulka murusada loo qaato waxaas wax la qaadan kara ma 3 ma qabato umana qaadmo ninka la yiraahdo midka hadda jooga u qaadmo maahan midka dala doona uma qaadmo mid meel ku maqan uma qaadayo warkaas 3 dhulkooda waxay codsahay in loo nabadgeliyo xogaa dhalo way aha bangala ka soo gaartay waxaan rabaa horta xildhibaan Jacfar in faataha loo maro qaasatan oo mid mursada caafimaad siiyo faataha xildhibaan Allah ku caafiyo Allah ku caafiyo intaas waa intii oo xildhibaanada raalaha laga hado xogaa daaqada figa faanteen waxaan aan rabaa dhul mursade iyo laamiga warshaad laga soo tagaa diblay lagu yimid raadiyaasha way ka aragteen oo malaya nashqad midaan ka tiro badan oo 7500 boos aan saaray xildhibaanka hadda ka hor yiri waa daahday hadeer gudoomiye hoosta ka taala gudoomiye Ciise ay hoosta ka taala xildhibaanna Saleemaan oo loo soo ooyana waxay dhaheen xildhibaanna mursada nagu dar anaga idinku tirnay anaga idinka tirayna xildhibaanada waa laga rabaa inay odawaayo tagaan adan ku tire ka tirirahan iyadana waa fara marka waana maadsantiin dhulka mursada waxaan leeyahay mana u xareeyahay mana soo xareeyahay baano dhul waa noo yila adoogeena ugu dhal no ana keen sida habargeer gadamayna dhul habargeer dhulka waxay ku gadeen inaysan dhul keensan mursada inda fakala siiya xilbaanadu waa maasiin dhul aan la nimaday xilbaan dhulkaan adaale dadkan ka ilaasho waxa loogu dhimahay ama intaas ummadii ugu soo dhamaatana waxay aheeday wax la yiraahdo lahaansho qof aan wax lahayn uma dhinto umana dagaalamo saas awgeed waxaan soo jeedihaynaa aqliga iyo garashadu ma ahan inaan dawlad diidanaha ma aha inaan ninka la yiraahdo dawlad ka soo horjeedna ma aha inaan mucaaradnaha ma ahan waxa weeye waa taageersanaha dawladda waxaan ku taageersanahay wixii wanaaga waxun hadda wax lagu ma taageersideedaba inta kadib waxaan rabaa in la fahmo nima wuxuu yiri moogtahay hadii adigu aad aragto dadkaaga say u kala say isugu duubayeen marka aragtaan waa lagu farxaa markay kala leexsan yihiin waa laga naxaa maanta waxaan aaminsanahay sida loo dhashay inaan u taaganahay u aaminsanahay isugu duubanahay isku duubnaantaasna waxaan rajaynaynaa in Ilaahay noo sii kordhiyo waxaan maanta jirin kanu waa reer hebel kanu hebel uu la shaqeeyo haya kanu lacag ku soo qaatay kanu ninka la yiraahdo dalaal ka yahay waxa soo dhan waxa way maanta ma jiraan hal midaan nahay nin walbana waxa meesha keentay iyo gabar walba joogtahay shucuurta iyo culayska meesha ka jira inta kadib waxaan rabaa مسؤولينta inay waxa waaye waxaad moogtiin idin sheegimayno dadka dhulka iskale iyo qof aan dhul lahayn isku mid maaha ninka dhul oo degay maanta inta loo sharciyeeyo lacag laga qaatay loo sharciyeeyaa waxa waaye dan uu ku qaba laakiin ninka dhulka uu leeyahay asagu oo aabihiis iyo awowgiis ka dhaxlay maanta hadii la yiraahdo laga iibiyo dhulkaagi oo booskaaga iga gado nin yeelaaho ma jiro saas awgeed waxaan rabnaa inaad nagu garab gashaan nagu dhinac istaagtaan wanaaga iyo sharaftaan idinka sugaynaha ay noqoto sidii dadkan iyo dalkan loo badbaadi lahaa waa meeshaad ka soo geli lahaydeen waa meesha la idinka dooro lahaa waa dadkiina dadkaanu qofka aaminsan anigu dawladda waa isaga jiraa laakiin anigu dad uma baahni waa dhunsan yahay waxaa jirta qofku sidiisa dadkiisu dadku yahay markuu dadkiisa aqoonsadana asaguna waa la aqoonsanaa hadda ka hor waxa weeye waxyaabo badan aan soo aragnay hadda ma rabo inaan wada sheego kulligood waxa weeye qofku haddii uu dad leeyahay ayuu dad yahay hadduu dad leeyahay ayuu codkiisu shaqaynaa hadduu dad leeyahay ayaa waxaa shaqaynayo waxtarkiisa iyo waxa la wuxuu yidhaah wuxuu diidana waa diidnahayaan wuxuu yeelana waa
وشغينا ساس أوجد وحنا إذن كرمنا إن نقرب استكتان لقصوا بالعبيكس كنترول إلا ميزان كدعش ويعكسور رقم ذاهو ولا يغانا ودول سدع يسقى عد لسينا عد لو أقول يعني لما أركو عد اللي عكو يبستها وعكو يبسكرتها لكن عد حوك وسوق على كرتها لما أركو دي الله يلا مثلا ديار الناس وعالم كثير وحيدنا من الرسول أما لا والله أبيسه والله من الله يطلع أنا هو كل أنا مسراج فرالي فيه أنا باسم سير عليه من سير بعده يمكن أنا والله كل أسره أسير كل ما أرجع وعاني ليش ولا متراد أنا مرة ما حتى أنا متراد أنا ولي ما أنا وأنا يسقط الماء حتى وقت ذلك كده ما نازلين وقت جماعة المنسين حتى صونا على تما حتى فاتح على مدينة ولا يسين حتى فاتح على قوانين ما نمر فيه ولا يقولون والله ما أنا أتمنى قوانين ما نبيار ما يملي أنا قلت تجمع الشيء تجمع ما تسمعك هذين الله يا إلهنا نتريد نقول أنا ما أعرف أني قلنا على كذا أول أمي لا تقبل أمي تلا قبل لكن أسير تعلم مركان سوق كلمة استعرض هذا التسكت التفكير بس عادي لكن وحنا يقدر على الدماء ما يرونه كرفنت ما مرح النووي الدار لا قال في دمر كان كرفنت ما عليه وادي ما شيء ما شيء الله أكبر halkan ku soo biirtay adoo hesho warin macluumaad joogta